haddii marka rajiimka xasan sheekh ama nidaamka xasan sheekh ama taliska xasan sheekh uu rabo inuu yidhaahdo anna cagaf iyo burburin meeqa guryoo dumiyaa quraxa halka guryoo la geliyoo dumiyaa laakiin 500 600 oo guri hal mar haddii la duminayo ka war ayada dad baa magaalada waxay la wareegaa magaaladu waa nabad iyay nabad u tahay ninka wax dhacaya nabad u tahay ninka dabaqyada ka dhisanaya xoolihii masaakiinta laga dumiyey nabad u tahay ninka malaayiin asagoona tabcin yiri dad ganacsato ah dalkan waxaa jooga 20 sano 30 sano shilin ku dar wax ku soo tabcay waxaa la keenay dad ku taajiraya bil malaayiin ku tabcay kaas lacag uu bixiyaa qaaqlayaal uu siiyaa niman abwaane iska dhiga ama media iska dhiga iclaamiyiin inay yihiin warbaahin ama siyaasiyiin ay yihiin ani hadda waxaan aqaanaa nin xukuumadda ka tirsan oo xasan sheekh rajiimkii markiisii hore ayax wax booba oo tuug ah ku tilmaamay ma qarinayno aniga cabdiraxmaan wadaad saaxiibna leeyahay axmed cali fiqiya la yidhaha musuqmaasuqa markaa adiga ku jirto waa fiican yahay markii aad ka maqan tahayne waa xun yahay sax miya weliba xasheekh markuu ayax dhahayay wixiisa ma badnayn hadda ayax waa dhaafay ma garat marka dadka waxaas lama rabo idinkaan in la joognaa xaafadda cawada in kula hoyanaynaa say biyaana agteeda in la joognaa janankaan marti u nahay waa la ogyahay wax qarsan maaha halkaana in kula hoyanaynaa halkaana iska raacayna hal waxna waa inii sheegaa isbeddel xilligiisi yimid lama celi karo sidoo taariikhda lama celiyo xasan sheekh waa ku timid asaana isku keenay meeqaan lahayn war dadka ka leexo war dadka ka leexo war dadka masaakiinta ka leexo oohinta gabadhii meeshaan ka hadashay odaygii weynaayo arkaysana waa yeelka ahayo masaajidka dhex fadhiyey kii kaloo waa yeelka ahayo oo dhahay intee aada ha u dhahay yaa maamadii kaloo ka hadlaysay indhoolkii ka hadlayay buulo gaal jecel maamadii wardhigley war dadkii xaggee aadaya waxay noqotay booskii bannaanba hadda ninaa soo arkaa madaxweyne boos